بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمان أرضنا ميلو باجوكتان كسر هذا مادة ساينس كفصل كسيدات دكتور الحق أرضي وحين ما أنت على كقاعدنا عتب كيلوات مادة ساينس كفصل كسيدات عتب كيلوات عوان كيس جود وحيوانات عوان حوسات كأن كبرن دون عتب كان وهبنسية ترنك آدمية kalluunka iyo raacda hordhac cutubka waxa ku baran doontaan taranka aadamiga kalluunka iyo raacda arday marka ugu horeysa waxa jira waxa la yiraahdo walxaha nool waxa u kala saarina laba qaybood ayaa u kala saarina waxa u kala saarina laba qaybood waxay kala yihiin xayawaan iyo dhir labadaas waxa loo kala saaraa walxaha nool casharkeena marka wuxuu ku saabsan yahay xayawaanada ayuu ku saabsan yahay xayawaanada sida loo aawado ogsoonahay nooluhu wuxuu leeyahay wax la yiraahdo astaamo oo lagu garto inuu nool yahay haddaba astaamaha xayawaanada waxaa ka mid ah astaamaha xayawaanada waxaa ka mid ah kow taran nooluhu waa tarmaa labo neefsasho nooluhu waa ay neefsadaan saddex dhaqdhaqaaq ama socod nooluhu waa macnaha xayawaanku waa u socdaa socod waxaa kaloo ka mid ah cunto qaadasho xayawaanku cunto ayuu qaataa waxaa kaloo ka mid ah koriin astaamahan iyo astaamo kaleba waxay ka mid yihiin astaamaha noolaha marka waxa uu nooluhu leeyahay astaamahan soo socda neef qaadasho qashin saar dhaqdhaqaaq dareen cunto qaadasho iyo koriin haddaba casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay qaybta koowaad taran waxa la yidhahdaa taranku waa maxay marka taranku waxa weeye waa habka nooluhu u dhalo waa habka nooluhu u dhalo noole kale ama ubad la nooca taran waxa lagu qaxaa sida casar ka muuqata waa habka nooluhu u dhalo ama ku dhalo noole kale ama ubad la nooca taranku waxa uu la xiriiraa isu tagga ugxanta iyo hawada ay leeyihiin nooluhu haddaba noolaha waxa u kala saaraynaa noolaha waxa loo kala saaraa marka laga eegayo xagga taranka waxaan u kala saaraynaa lab iyo dhadig waxaan u kala saaraynaa lab iyo dhadig ayaan u kala saaraynaa lab iyo dhadig haddaba casharkeena koowaad waxaan ku qaadanaynaa taranka aadamiga waxaynu ku qaadanaynaa taranka aadamiga taranka aadamiga saan la soconno aadamigu wuxuu ka kooban yahay lab iyo dhadig ka kooban yahay maadaama uu lab dhadig yahay mid walba wuxuu leeyahay habdhis taran oo u gaara oo waxaa jira habdhiska taranka dhadiga iyo habdhiska taranka labka waxaynu ka hormarnaa marka habdhiska taranka dhadiga ayaynu ka hormarnaa waaya habdhiska taranka dhadig wuxuu ka kooban yahay qaybahan soo socda waxaa ugu horeeya ugxan sidayaal waa laba ukumood shaqada ay qabtaan waa maxay waxay soo saaraan unugyada jinsiga ee dhadiga
ama waxay soo saaraan waxa loo yaqaano waxay soo saaraan waxa loo yaqaano ugxan bisaaran ugxan ay soo saaraan wuxuu kaloo ka kooban yahay marin ugxaneed wuxuu ka kooban yahay marin ugxaneed ay ka kooban yahay oo waxa marta ugxantii uu soo saaray ugxantii laga soo saaray waxaan sidiyaasha marinka ay soo mariso waxa loo yaqaana marin ugxaneed shaqadeeda waxa weeye waxa si dhex marta ugxanta ka timaada ugxan sidiyaasha ayaa si marta qaybta saddexaad wuxuu ka kooban yahay ilmo galeen wuxuu ka kooban yahay ilmo galeen ilmo galeen qaybta afraad wuxuu ka kooban yahay xubinta dhalmada wuxuu ka kooban yahay xubinta dhalmada ayuu ka kooban yahay intaas waa maxay waa habdhiska taranka dhediga weeye habdhiska taranka dhediga weeye waaya qaybta kalena qaybta labka haddeen u nimaano marka habdhiska taranka labka haddeen u nimaano habdhiska taranka labka haddeen u nimaano sawan wuxuu ka kooban yahay xubnaha soo socda waxaa ka mid ah xiniiniyo waa labo tir ahaan waa mise waa labo waxay soo saaraan unugyada jinsiga ee labka ama waxa loo yaqaan xawada ayaa la soo saaraa xiniyo waxay ku dhex jiraan kiiska xiniyo waxa la yiraahdo ayay ku dhex jiraan xubnaha habdhiska taranka labka wuxuu kala kooban yahay waxa loo yaqaano marinka xawada marinka xawada ayuu ka kooban yahay waaya wuxuu kaloo ka kooban yahay qanjirada jinsiga waxaa kaloo ka mid ah qanjirada jinsiga waxa loo yaqaano sida casharka ka muuqata qanjirada jinsiga ayuu ka kooban yahay ardayay intaa waxa u gudbeynaa taranka aadamiga ayuu intaa u gudbeynaa waxaa ku xiga taranka kalluunka ayaa 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 ku xiga si aan la soconno horta kalluun waa maxay marka hore kalluunku waa maxay kalluunku waa xayawaan biyo ku noole ah sidaas awgeed waxa uu ku dhex tarmaa biyaha dhexdooda waxa uu ku dhex tarmaa biyaha dhexdooda ayuu ku dhex tarmaa waxaa jira marka laba nooc oo kalluun ayaa jira kalluunka waxaan u kala saaraynaa laba nooc kalluunka waxaynu u kala saaraynaa laba nooc ayaan u kala saaraynaa oo maxay kala yihiin kalluunka lafleyda ah kalluunka lafleyda iyo kalluunka carjawleyda waaya labadaasoo kala saarayna kalluunka lafleyda ah waxa uu leeyahay qalfoof ka samaysan laf kalluunkan muxuu leeyahay qalfoof ka samaysan laf ayuu leeyahay kalluunka noocaana waxaa ka mid ah kuwa ku nool biyaha macaan tusaale webiyada kalluunka maxaa ka mid ah marka tilaabiyadda ayaa ka mid ah kalluunka la yidhaahdo tilaabiyadda ayaa tusaale u ah tilaabiyadda ayaa tusaale ah waxaa kaloo ka mid ah kuwa ku nool badda oo tusaale iyaga wax u ah makaraalka ayaa tusaale u ah kalluunka carjawleyda marka haddii u nimaano kalluunka carjawleyda wuxuu ka samaysan yahay
wuxuu leeyahay qalfoof ka samaysan carjow qalfoof wuxuu leeyahay qalfoof ka samaysan carjow ama tahar ay ku samaysan yihiin carjowdu aad ayay uga jilicsan tahay lafta waxaa kooxdan kalluunka ka mid ah kalluunka noocaana waxaa tusaale u ah libaax badeedka ayaa tusaale u ah libaax badeedka ayaa tusaale u ah waxaa kaloo tusaale u ah kalluunka loo leeyahay rayiska kalluunka la yiraahdo ayaa tusaale u ah waaye kalluunku waxaan waa xayawaan biyo ku nool ah sida awgeed waxay ku dhex tarmaan biyaha xilliga dhalmada waxay ku ururaan biyaha gaaban halkaas oo dhadigu ugxan ku dhalaan intaa kadib kuwa lab ayaa u soo dabaasha ugxaanta kadibna ku bacarimiya xawadooda bacariminta kadib labka iyo dhadiguba waa ay ka wada tagaan ugxantii la bacrimiyey kalluunka intooda badani ma daryeelaan ubadkooda dilaacista ukunta kadib kalluunka yaryar waxay u koraan iskoodba u koraan qaybta saddexaad ee casharkeena wuxuu ku saabsan yahay taranka raha taranka rahu wuxuu dhacaa inta u dhaxaysa xilli roobaadka inta lagu jiro sawirkaa wuxuu tilmaamayaa meertada nolosha ee rahda oo waxaa ka mid ah rahdu marka waxa ugu yar oo ay ka samaysanta waa maxay waa ugxanta waxay u dilaacaysaa lulumada marka waxay u koraysaa rah marka sawirka waxa la yiraahdaa meerta nolosha rahda baa la yiraahdaa sawirka waxa ka muuqata ugxantii rahda oo ku dhex jirta xab waxa la yiraahdaa ugxan waliba waxa ku wareegsan wax sida xabka isjiidjiidanaya xabka isjiidjiidanaya marka waxa uu ka caawiyaa ugxantii inay isu dhigsanaato waxa uu kale ka celiyaa inay qaadin xoogga biyaha inaysan qaadin marka ay ugxantu dilaacdo waxay u kortaa lulumo 30 saacadood kadib lulumuhu waxay ku dhagaan dhirbiyoodka intaa kadib waxay bilaabaan inay ku dhex dabaashaan biyaha oo ay cunaan dhirta lulumuhu waxay ka neefsadaan waafiyahooda casharkeena maanta waxa ugu dambeeya su'aalahaas arday su'aasha koowaad waxa weeye qor astaamaha ay leeyihiin xayawaanku su'aasha labaad waa maxay taranku su'aasha saddexaad kala sheeg noocyada kalluunka su'aasha afraad muxuu xabka isjiijeedinaya waxtar ugu leeyahay ugxanta ardayda casharkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaa aad baa u mahadsantihiin